In Somalia, we have 3 reported cases of coronavirus so far. Soomaaliya waxa ilaa iyo hadda la hayaa 3 kiis oo caabuqa coronavirus ah. Waxaana qaadnay dhammaanba tallaabooyinka muhiimka ah iyo kuwa siyaasadeed ee lagula tacaalayo laguna yareynayo saameyntiisa. The Federal Ministry of Health and federal member states health teams and experts are doing a great job. walow kooxaha iyo quburada wasaaradda caafimaadka ee heer federaal iyo kuwa dawlad goboleedyadu ay howl fiican hayaan haddana weli Soomaaliya waxa ay u nugushahay xaaladda caafimaad oo degdeg ah oo baaxad leh maxaa yeelay waxa weli curdun ah hanaanka caafimaad ee dalka oo hadda dhismaya aniga oo arrintaasi garowsan isla markaana tixgelinaya xaddiga halista ah ee caabuqani caalamka iyo gobolkeena ugu faafayo waxaan soo dhaweynayaa yagleelidda istiraatiijiyadda heer gobol oo IGAD leedahay taasi oo lagula tacaalayo halistan caafimaad ee safmarka ah waxaan sidoo kale dhiirigelinayaa in si degdeg ah loo abuuro hanaan ay quburada caafimaadka ee gobolkeena oo ay hogaaminayaan wasaaradaheena caafimaadka iyo hay'adaheena caafimaadka ee guud ay ku wada xiriiri karaan xog ku wadaagi karaan isla markaana laga hago dadaalada heer gobol. The urgent establishment of a mechanism through which our regional medical experts led by the ministries of health and public health agencies can communicate, share information, coordinate regional efforts. dagaalkan aynu kula jirna caabuqa coronavirus tallaabooyinka aqoonta ku dhisan iyo fargelinta dhanka caafimaadka guud waxa ay furo u yihiin badbaadinta nolosha dadkeena walaalaha ah xaqiiqatan coronavirus ma yaqaano xuduud sidaas awgeedna waxa ay u baahan tahay in aynu yagleelno gaashaan guud oo aynu isaga difaacno knows no border and we need to shield ourselves with a common defense against it.